waxaan doonayaa inaan ka hadlo xaaladan doorashada golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka oo ay gadabuursigu bilihii dhaweyd iyo muddo horeba aw meel iskaga tiiriyay hase ahaatee ay beelaha qaarkood ama odayaasha qaarkood ay baryahan sida si aan waafaqsanayn sidii reernimada ay u galayaan oo aad moodo inay sumarxadayaan runtii muddo laga joogo 20 sano ayay gadabuursigu saamiga Soomaaliland ay ku leeyihiin ay saluugayeen intaaba way soo socotay dacwadeedu hase ahaatee bilo dhaweyd oo muddo dhowr bilood laga joogo saddexda xisbi oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi hogaaminayo baa salaadiinta gobolka u yeeray waanay u tageen waxaanay u sheegeen salaadiinta xisbiyada oo madaxweynuhu hogaaminaya in doorashada baarlamaanka lagu geli doono sidii hore 13 ahayd way diideen oo way ka gaashaankay ku daruureen salaadiintuna arintaa waxay yiraahdeen arintaasi arin qabata maaha hase ahaatee saddexda xisbi oo madaxweynuhu hogaaminaya waxay isku bedeleen oo jawaabta ka dhigeen iyagoo si maldahan u dhigaya inaan beesha isaaq aanay u kordhinayn beesha gadabuursi wax masqaba oo halka dhaafsan hadii la yiraahdo darajada ciidamada iyo hadii la yiraahdo wasaaradaha iyo hadii la yiraahdo agaasimayaasha iyo horumarinta mashaariicda horumarinta intaba faramaran guudkood buu gobolka awdal ka jooga sidaa darteed bay uga soo boqoleen salaadiintu runtii aad iyo aad bay buursigu qof kasta meel kasta oo joogaba arintaas salaadiinta ku taageer arinkaas sidaas lagu soo dhaweeyay gobolka awdal arinkaa halkaas buu gadabuursi iskaga tiiriyay marka laga reebo xayn yar oo saajin iyo seed iyo inanka yar caanuug ee wasaaradda caafimaadka jooga ay meelaha seeraha iyo dareey macaana ay ku qabteen oo ay yiraahdeen doorashadan galanaadhay maahe in alla inta kale gadabuursi arrinka meel buu iskaga tiiriyay hase ahaatee waxaan maqlanaa baryahan sida iyadoo ay u tahay baad dabadeetana madaxweynuhu wuxuu bilo dabadood socodka salaadiinta ay kulmeen kadib ayuu wafdi ballaaran isagoo ay la socdaan ku yimid gobolka waxaan anigu u qaatay inuu arintii cakireyd xalkeeda wada madaxweynuhu 3 maalmood iyo 3 habeen buu magaalada Boorama u hooyay waxaan isiri marka la isku dardaro waxa weeye 100 saacadood oo dhow 100 saacadood oo dhow cid kasta oo ama wasiir ama madaxweyne oo caalamka u socod u gasha 5 saacadood gudahood waxyaabo badan bay ku dhameeyaan hase ahaatee madaxweynuhu marka 100 saacadood la isku daro irbadun ma gelineed maalinta casarkii afraadna uu ka caraabay magaalada Boorama waxaan anigu mooday oo aan lahaa uu qabanaya in habeenkii horeba saddexda habeenkii u horeysayba aw dhigo gogol aw salaadiinta iyo uqaasha iyo waxgaradka uu sugu yeero dabeetana waayeel hortiisa biyo lagu barxaay aw arrinka halka aw ku qanciyo ama ay iyaga qanciyo ama waxay iyagu ku leeyihiin aw ku qanco habeenka labaadna dhalinyarta iyo jaamiciinta iyo rag iyo dumarba hablaha iyo wiilasha dhalinyarta aw gogol ballaaran u furo oo si waadaxa oo ballaaran oo siyaasiya oo diblomaasiya oo waayeelnimo oo curadnimo oo arrinka u galo habeenka saddexaadna iyagoo qancay bulshada iyo isagu ay taageero ay halka saxaafadda soo horjeegsadaan hase ahaatee arrinkaasi uu dheeliyay inta markaan ka gudbo waxaan maqlanaa odayaal dhowra oo saxaafadda iyo magaalada hudheelada Boorama shirka jaraa'id ku qabanaya oo oranaya 7 maalmood ama 7 wiil ayaanu kala saaranay shirbaanu muddo bila ku jiray kaasaanu dooranay oo xildhibaan ka dhigana arrinkaasi waxay ila tahay waa arrin ay sumarxadeen laxda sumarxadaana waxaan ognahay inay kaliisha meel cidlaa ku dhasho